Assalaamu calaykum asxaabtey meel kastoo aad joogtiin soo dhawaada waa janalka Umu Xalaam Janal. Waxaan kasoo tuuri rabnaa hambeegar yar oo fudud insha Allah. Halkan waxaan ku haystaa ansalaato. Halkan waxaa igu jira yaanyo, sokor, leebito, caano booro bakin, saliid cadeey, saliid ama subag waxaa haysatid ayaa ku darsan kartaa ama batar. Halkan waxaa igu jiro sisin. Halkan waxaa igu jiro burki. Halkan yaanyada igu jirtana waa yaanyo gasac si jila ku jirto. Gasacana waa idila wadaagi doonaa asxaabteeda. Halkaas ka jabka basbaaska ayaa yaalo. Ilmaha hadday cunayna qabow ayaa u isticmaali doontaa. Mayonnaise-ka aniga anaa soo diyaarsanayo insha Allah. Ma soo gadaay dhalo mid ku jiro ma keensi dooni marka sida loo sameeyana anaa gadaal idinla wadaagi doonaa hadda kiima gaaro. Yaanyada waa tanaa aan ku darsaday walaalahey dhamaantiin si fiican u fiiriya. Waxaa laga helaa supermarket-yada, dukaamanka meeshii ku fudud. Halkan waxaa igu diyaarsan rootigii wixii dhan aan ka sameeyay dhamaantiis iyo wixii aan markaas dhaxda ka gali lahaa haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan isla aadi doonaa qaybtii rootiga qasitaankiisa haduu Alla yiraahdo. Waa kana kaamirada ayaa wax yar iga dantay laakiin wixii dhamaan meesha ku soo sharaxay ayaan ku daray. Waxa u dambeeyana waa ukuntii hal xabo ayaan ku darsaday ilaa 2 xabo 3 xabo ku darsan kartaa jooskaada iskale intii uu burkaada la eg yahay ayaa ku xisaabtamaysa haduu Ilaahay yiraahdo. Aan rootiga sameeynayo qiyaaskiisa waa iska kiilo waxaana ku daray hal xabo ukun hadaa jeceshahay waa ku badsan kartaa. waa kana rootiga waan soo qasay smooth ayuu noqonayaa wax yar meel ayaa la dhigayaa 15 daqiiqo waa ujeedin soo qamiirin sidoo soft u yahay. marka inta wax yar ku soo qamiiro oo kala soo ekaado haddana waxaan la aadeysaa saxanka markaa ku diyaarisid rootiga waxaa la rabaa haddana inaad siisid fursad. Halkan waxaa igu jiro baradhadii hadaa aan idin tusay oo soo feeteeyay oo jabsiga ka soo diyaari lahaa. qaleel ayaa ka dhigi kartaa jabsiga markaa bariis ku cunaysid laakiin aan rooti aan isticmaali doonaa gaduud loo isticmaalaa. ukunta ujeedid biyo ayaan ku soo karin doonaa. rootiga ayaan dhaxda ka gelinayaa. basashan yaanyada ayaan ku soo dalaci doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. jikada ayaan isla aadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. waa kana jabsigii waa kana aanan saaid ka dhigay gaduud yar ayaan ka dhigayaa haduu Alla yiraahdo. aad ma uga badinaay dabka bariis markaa ku cunaysid qarab ayaa laga dhigaa laakiin markii rooti iyo waxyaabo kale integration oo isticmaalaysid waa inaad jilcisid kalarkaas adiga gaduudka bisle dahabiga laga dhigtaa. waa kana markaa soo diyaariyeen waad arki doontiin waa kana san egyahay. waa kana rootiga saxanka ayaan ku soo diyaariyay hadda waa ujeedin soo yar yahay marka dhigtidna saan ayuu soo qurux badnaanayaa. waxaan soo saaray sisintii just fiican ay ku siinaysaa caraf ay raashinku u yeeshaa markii foornada la geliyo. hadda foornada ayaan gelinayaa. qaybta kaleetana waxaan soo marinayaa sisin iyo xabad ayadana aad markaa cunaysid inkee way carfisaa raashinka. rootiga muufada inkee waa isticmaali kartaa waxyaabo badan loo isticmaalaa. waa kana rootigii sayuu u qurux badan yahay hoos iyo kor guduud 15 daqiiqo ku jiraaya ka bacdina sidii arabtu ku soo baxaya. hadaa arabtu kor in waxa ku guduudinayso foornado aad u shidan hadaa gelisid oo 20 daqiiqo hore kugu shidneed hoos bisa u shidee kora uga qaaday saxanka caadi ma aha sheekada. waa kana san ayuu ku soo baxay marka smooth waa rootigii waan soo diyaariyay suugada ayaan soo dalacayaa. jikada ayaan isla aadeynaa insha Allah. maanta waxaan ku dhaca caruurtii qeylinayso soo raali ha leega noqdo xoogaa buuq jira u maleenaya.
guriga dhinac marti ka joogtaa waxba waa arkinaa mar kale taa ka badan buuqi iyo hooshiin isku dhex wataa lahay halkan basashiyaan ku dalacooyaa suugada ayaan soo diyaarinayaa suugada markaa soo dalacdid yaanyadaada waa kanaa halkan waxaan kusoo dalacooyaa suugada markaa dalacdid basasha iyo waxba ha jijibinin ee kuu bislaato qalaadada le ku shub maadaama ambeegar ku suubinaysid kararaf kusoo sii waaba isku dhamaataba waxa kuusoo baxay suugo ismuud ah waa kanaa walaaley markaan soo diyaariyo ayaan isku laabaneynaa wax yar biyaa ku dareysaa suugada wax badan kaama qaadanaysa bakeeri biya kuugu soo bislaanaysaa ugu badnaan yaanyadan supermarketyada iyo dukaamanka meel kastaa ka helaysaa waa yaanyo fiican aad gaduudkaas shiishiid iyo wax kaama rabto sideeday ku dhammaystiran tahay daboolka ayaan u dhiibayaa waa kaasaa biyihiyaan ku daray waa soo daboolayaa ka bacdine diyaariskii ayaa noo dhiman waa kana waa soo diyaarinayna halkan waxaan ku haystaa ukun ansalaatadii waa tanaa suugadii waa tanaa saanay kusoo baxday soo aad uma qurux badno halkan ukunta rootiga dhexda ka geli lahay waaye waa ukuntii jibsigii mayoneyskii waa kaasaa anaa soo shiitay gacanteeda ayaan kusoo suubistay kii dhalada ma ahan mar kale ayaan idiin soo gelinaya hadduu ilaah yiraahdo halkan ka jabka basbaaska waaye kan qabowga ku suubsa hadda caruurtaada cuni karin waa kana rootigiina haddaan soo diyaarinayaa markaasna waa isku soo laabaneynaa hadduu ilaah yiraahdo waa cunto aada u fudud ilmaha marmar ha looga soo tuuro ha loo hawo bedelo cashada xaajiga waaye xaajiga habeen baastada iyo bariiska laga dhaafo dhaxa lagu siiyo caaniisi cabitaankiisana hoosta laga geliyo xaajiga ilmuhu ka mid yahay iyo reerka waa ogtiin waa gaadiidkii guriga ha lagu dadaalo habeen cuntaha la siiyo meel kasta ha laga dhisa xaajiga cashada waa cashadii xaajiga cawada kusoo yaaca dhammaantiin share halay dhaho subscribe comment like dhammaan wixii dhadhamisana waa xaggeyga wixii aragtina idinka waa commentiga lagu soo qoro